شكرا سعوتان وشيقنا كاشيحة وحين شرفت لي كاشيحة وحين شرفت لي شدنا لجوك طيبح شدنا قبح شرصو سعوتا ديران شدنا لجوك طيبح شدنا قبح شرصو سعوتا ديران إن شاء الله شوش كانوا نواشا فاع الله شمبتين ودي جلي تبوبتاي شوتا وصودك شمبتين أبدا جلي تبوبتاي شوتا وصودك kor u qaadista aqoontooda u dhamaystirka qalabka ay u baahan yihiin joogtaynta bixinta xuquuqdooda sida mushaharka iyo weynaynta garaadkooda wadaniyadeed dhammaan qodobadaasi waa kuwii uu xoogga saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddada uu xafiiska joogay natiijada ka soo baxday dadaalka madaxweynaha waxa ay noqotay in maanta ay jiraan ciidamo u diyaarsan in ay guud ahaan dalka ka xoreeyaan maleeshiyaadka shabaab ciidamada xoogga dalka oo helay niyad wanaagsan ayaa howlgalkii ugu horeeyay oo dalka lagu xoreynayo ka bilaabay gobolka Shabeellada Hoose waqti kooban kadib ciidamada xoogga dalka waxa uu suurto gashay inay maleeshiyaadkii shabaab kala wareegaan magaalada madaxda gobolka Shabeellada Hoose ee Marka shacabka ku dhaqan magaalada Marka waxa ay si weyn ugu farxeen cadawga laga dulkiciyay marka cadawgayna waa hal al-shabaab waa inaan iska dhicinaa annaga hadda saqiir iyo kabiir surwaal nagu jiray oo tuuta ah maalintii aad soo gashay waa hurdnay aniga ilmahay waa hurdnay Ahmed Gaashan waxaan ku leenahay guul Allah ku siiyo adigoo cadawga shabaab meel naga saartay shabaabna insha Allah taala waa laga xulay doonaa hadii Ilaahay idmo gobolka Gumeysdiid sanadihii u dambeeyay xaaladda magaalada Marka waxay ahayd mid cakiran xasuuqa iyo dilka shabaab ka sokow waxa magaalada Marka ka jiray colaad u dhaxaysay beelo walaalo ah oo magaalada wada degan colaadda beeluhu waxay ahayd mid saameyn kala duwan ku yeelatay nolosha bulshada ku dhaqan Marka ku dhawaad 6 sano ayay soo fadhiyeen maleeshiyaadka labada beelood iyadoo aan wax guulaha laga gaarin dadaalo badan oo jawi nabadeed lagu abuuri lahaa ugu dambeyntii Marka ciidamada xoogga dalka ayaa ka sifeeyay shabaab waxaana ay soo jeesteen sidii loo kala qaadi lahaa maleeshiyaadka beelaha colaadda u dhaxayso waana mirihii laga dhaxlay wacyigelintii ku saabsanayd wadaniyadda iyo daljacaylka ee ay ciidamadu heleen muddadii koobnayd ee madaxweyne Farmaajo waqtiga siiyay ciidamada qalabka sida war waxaan naga ballanay ama ani Maxamed Sheekh aan ballan qaaday maanta Ilaahay awoorti ila og yahay khori anaga aan leenahay in aan lagu taagan qof qabiila waa dhaawacnay qaara boos naqday qaara agoon ay ilmo ka tagay oo ma jirta qof qabiil oo ciidankaas wax meel u saar kar ma jiraa وخوف قبيلة ما حكوا دش وحلاقي يا إسبتالك أتكت حتى إن الداود توصلين قد على الحمى كقاد قبيلك حتى أتكت وروح إذا شيء نكي وحكفة إذا قبيل نكي وحكفة إذا قبيل وروح نكبل منا وهذا أسئلة هنا الأوجه هي قلب واي خارق قبيل عد أقادة أما هم نوع أقلو أنا لا درة يا أما أصاب بحياة أما أنا بحياة أرنتاز وحوي آدي قف كست أو بني آدم أو ضمير أو صومالي أو إسلام أي مارة وحي قدام قس إلا يرادو رير هيل بقى مركز اسكو دليا أرنكان waxaan rabaa galabta laga bilaabo in laga tanasulo qulubta laga saaro guri dambo la fuulo laga gudbo qabyaaladii meesha ku dhamaato waa dhamaatay waa dhameystirana insha Allah go'aankaas ay la qaateen waan rabaa hadii la yiraahdo anaga heshiisintan qandaraas baan ku qaadan baasan laguma siinin Ilaahay dartiisa ugu shaqeyn dadkaas in dhiiga la kala badbaadiyo dhalinyartaas isku cadowga ah hal cadow ay wada jeestaan ina caawa saacadan la joogo aan qorayaan u jeedina cadowga ballan Ilaahay mata ballan Ilaahay mata ana garabkiina taagna insha Allah marka waxaan rabnaa askari qoray ku wada kala oo 4 Oktoobar aan ahayn ma jiro Marka hadda waa nabad shabaabna waa lagu xoreeyay sidoo kale colaadii beelaha walaalaha ah ee sanadaha badan soo jiitamaysay waa la soo afjaray waxa la joogaa waqtigii ay dadka deegaanku heli lahaayeen nabad iyo nolol lana soo gaarsiin lahaa adeegyada dawladda شكرا سعوتان وشيقنا كاشيحة وحين شرفت لي كاشيحة وحين شرفت لي شدنا لجوك طيبح شدنا قبح شرصو سعوتا ديران شدنا لجوك طيبح شدنا قبح شرصو سعوتا ديران إن شاء الله شوش كانوا نواشا
شمرتين أبدا شريت بوبتاي شوطة وصوتك